biyo-xireenka Gerid himilo waqti dheer ay hiigsanaysay waddanka Itoobiya oo maanta ay gaareen guusheeda 2011 ilaa 2025 ayaa la dhisayay. Arrintani waxaa cadaawad weyn u arkaa wadamada jaarka la ah waddanka Itoobiya oo ugu horeeyo Masar iyo sidoo kale waddanka Suudaan. Arrintani geeska Afrika waxaa la sheegayaa in saameyn taban iyo mid wanaagsan labadaba ay ku yeelan karto. Waxaa suurtagal ah in cadaawad ay kala dhex qaadaan wadamo daris ah, sidoo kalena tamarta ay sameynayso biyo-xireenkan maanta xariga laga jaray waxa uu quudin karaa wadamo badan oo haatan qaarkood ay soo dalbanayaan inay helaan tamarta halkaasi ka soo baxaysa. Marka koobaad, maxay uga dhigan tahay arrintan? Kadib waxaan kula wadaagi doonaa khudbadda ra'iisul wasaaraha Itoobiya ee maanta xariga ka jarayay. Aynu ku bilaabano muxuu yahay biyo-xireenkan. biyo-xireenkan Abiy waa kan ugu weyn Afrika iyo kan toddobaad ee caalamka ee soo saaraya koronto ku filan dalalka geeska Afrika. Dhismihiisu waxa uu bilowday sanadkii 2011 waxayna ka dhigan tahay in muddo 14 sano ah la dhisayay. Waxaa bilaabay ra'iisul wasaarihii waqtigaasi Itoobiya ka talinayay Mele Zenawi. Waxaa la hirgeliyay mashruucan ismaamulka lagu magacaabo Bashangul oo ku dhow xadka dalka Suudaan. Sidoo kale waxaa laga hirgeliyay webiga Niil gaar ahaan qaybta buluuga ah. Waxa uu soo saarayaa 74 bilyan mitir kiyuubik oo biyo ah, iyadoona laga dhalinayo 6,000 oo megawatt oo koronto ah halkii mar. Tani oo tamar Itoobiya u horseedi doonta awoodda si baaxad leh ugu faafta wadamada Afrika. Waxaa ku baxay adduun dhan oo lacageed kaas oo gaaraya 5 bilyan oo dollarka Mareykanka ah, taas oo ka timid dowladda Itoobiya iyo shacabka Itoobiya. biyo-xireenkan ayaa laf dhuun gashay ku noqday wadamo gaar oo Afrika ku yaala, gaar ahaan kuwa dariska la ah webiga Niilna la isticmaalo oo ay ugu horeyso Suudaan iyo sidoo kale Masar. Itoobiya ayaa ku sifaysay in biyo-xireenkan uu uga dhigan yahay guusha dagaalkii xornimada ee cadowga oo kale in ay guul u gaareen, maadaama uu horseedayo biyo, koronto, dalxiis iyo mashaariic kale. aynu eegno maanta muxuu ka yiri Abiy Ahmed mashruucan oo xariga ka jarayo ee isugu yimaadeen inta badan madaxda Afrika, gaar ahaan geeska Afrika. Abiy oo arrintaasi ka hadlaya ayaa wuxuu yiri mashruucan waa mid Afrika ay leedahay, waa shaqadii ugu weyneed ee Afrika laga hirgeliyo. Waxa ay mudnaanta siinaysaa in Afrika ay ku faani karto, maadaama uu muujinayo in aan wax bilaab ah sameynay isla markaana aan dhammaystiri karno waxa aan bilownay. Waxaa xigi doona mashruucyo waaweyn oo ay ka mid yihiin soo saarista shidaalka iyo bacriminta. Waa mashaariic u dhigmaya kan oo lagu magacaabo mashruuca Abiy, waxaana ka mid ah waxyaabaha la sameyn doono nuclear plant, shidaalkii iyo bacrimintii 6 sano ee soo socota oo 1.5 milyan guryo ah ayaan u dhisi doonaa dadka Itoobiyaanka ah. Waa shaqooyinka aan hiigsanayno, ayuu yiri Abiy. Xuquuqda dariska waan ilaalin doonaa. Maanta ayaan ballan qaadaynaa shacabka Masar iyo Suudaan, gaajadoodu waa gaajadeena. Iyagoo gaajaysan anagu kaligeena ma noqon doono kuwa faa'iidaysana, ayuu yiri Abiy Ahmed oo ka hadlayay xarig jarka ay fadhiyaan dhammaan wadamada Afrika, gaar ahaan kuwa geeska Afrika marka laga reebo Masar iyo sidoo kale Suudaan oo iyagu u arka arrintan inay tahay khatar amni oo haysata.